asxaabta dhibantiinaad baan salaamayaa. Naagtan meesha fadhida waad ujeediin, kamarad baa laga duubayaa, iyadoo war iskuma hayso. Saad ujeediin bisad ama yaanyuur saa u taqaano ayay dishay, kadibna dhiigga ka shaqaysaa. Waad ujeediin midi bay ku yara daloolinaysaa. day 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 waad ujeediin dhiigga ka shaqaysaa. Marka dadka Soomaalida awal waxay ahayd Uganda, dadka bidaarta leh ayay dhihi jireen madaxiisa waxaa ku jira dahab. Hadda sheekadii way ka tagtay, yaanyuurtay maraysaa. Marka dadka responsorada ku sugaya dalka Uganda waxaan leeyahay hala bedesho, ama Kenya ama Ethiopia u bedesha insha Allah. Waa ujeediin ilaa hadda way shaqaysaa. Wata bisadii beerta loo diray, dhiigga laga shaqayaa. caruurtii iskoolka ka timid way garan marayaan oo la yaabsan yahay. Horror baa soo baxay, horror. Haddaad film ku daawan jirtay toos baad u arkaysaa hadda. saad ujeedid ilaahu noo naxariiso. xoogaa dadkii kusoo batay oo iska qaadatay. I think hadday doonto hilibkayga way cunaysaa. oo taas way baxday, aad ujeediin. marka meel yaanyuur lagu cunay ama bisad lagu cunay, qofka bini'aadamka muxuu noqonayaa? dahab horaa looga yaacaya wallahi. marka hala bedeshaan dhiiraad Soomaalida meesha ku nool, ama Kenya ama Ethiopia u bedeshaan safaaradahooga. aad baan idin salaamayaa. clipkaasaan rabay inaan la wadaago. saa ula socda insha Allah. xitaa kii mootadu waa qaadi waaye, iga timi kan dharka cad. naagtaas ninkan uu sharaxaya, naagtaas bisad bay dhiigga ka jaqdu leeyahay. allo sahal.